sheeko aan hore ii soo martay oo cajiib ahay oo annaka marka sheekh waxaan ula tegay sheekadii sheekh Cabdulcaziz Ali Sheekh waa muftiga magaalada Sacuudi wadanka Sacuudiga ee mufti caam sheekh marka qisadii u sheegay uu hadli kari waay wuxuu ku waashay la hawla wala quwwata illa billah la hawla wala quwwata illa billah allahumma la tuftinna allahumma la tuftinna sheekadu maxay ahayd sheekadu waxay ahayd annakoo joogna magaalada la yiraahdo Calgary waa magaalo ku taala Canada oo sheekh waa ku taala meel la yiraahdo Alberta ku taala wani imaam masaajid ka ahay ayaa gabadh baa ii timi Kanadiyada waa gabadh Ilaahay subhanahu wa gabadh isa soo qurxisay waa gabadh cad timihii soo marisay ama timo dahaba leh mariyo ku dhajisan soo xiratay mariyo gaagaaban iyo kaba dhaadheer isku soo taagtay gabadhii markaa way ii timi waxaanu haynaa markas la yiraahdo Islamic Information Society of Calgary waa markas alfanaar lamida oo dadka gaalada doonaya inay islaamka wax ka ogaadaan aanu u furay gabadhii baa ii timi gabadhii markaa waan ka foorarsaday gabadhii bay igu tiri islaamka ii sharax islaamka ii sharax shantii rukun ee islaamka buniya alislaamu calaa khams ayaan u bilaabay ma eegayo waayo gabadhii mafaatinkeedii oo dhan bay dabadda soo dhigtay mafaatinkii ilaahay siiyey oo dhan bay dabadda soo dhigtay mana eegi kartid gabadhii marba waxay tidhaahdaa that is beautiful way aad bay u qurux badantay ilaahay baan ka hadlaa subxaanahu wa tacaala tawxiidka inuu ilaahay keligii yahay inaan cid kale la caabudin inaanu ilaahay halkan inala joogin inaanu ilaahay inagu dhex jirin inaanu ilaahay inaan lahayn inaanu ilaahay reer lahayn inaanu ilaahay way ka mabsuuda waxay tidhaahdaa is so beautiful aad bay u qurux badantay diinta nebi maxamed iyo icjaaskiisii iyo caalam alajinna iyo embryology-ga iyo inuu nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam quraanka loogu sheegay maraaxil ibn aadamka loo sameeyo iyo maraaxil ku ji waxa dhammaan u sheegay aad bay ugu mabsuuday marka shantii rukun u dhameeyay ayay tiri I have a concern warwar baa igu jira warwarku waa maxay waxay tiri qofkan ku hortaagan qofkaad moodaysid ma ihi waxay tiri anigu waxaan haan jiray nin gabadh baan isu bedelay oo waxaan la baxan beertay waxaad arkaysid ilaahay wuxuu qalabkii uu siiyana waan iska zuulay oo waan iska gooyay gabadh baan ahay ilaahay dambiga may dhaafaya ilaahay dambiga anigu markaa waxaan naxdin ayaa tolo ma eegta mise waa dambi illa ma gabadhna maaha ninna maaha naagna maaha iminka ma kor baad u eegta oo ba wejigaad aragtaa mise waa dambi miyaad ka jeesataa maxaad u sharaxdaa haddii ay muslimto xaggaan geeya ma xijaab baan u xidhay dumarkaan u geeyaa kowdha mise waxaan idhaahdaa khamiis soo xido raggiisa soo dhex taga adigoo intan xambaarsan ilaahay ku barakeeye haddii aan dumarka u gudbiyo dee haddaan idinku idhaahdo waa dumarkiini nin baa la tukanaya dee way dilaysaan haddii aan halkan aan idin soo dhex joojiyana dee khushuuci daaqadu ka boodaya horta u kaadi baan ku odhi marka waa arrin weyn waa dembi ilaahay laga galay subxaanahu wa tacaala khalqigii ilaahay ku siiyey subxaanahu nin buu kaa dhigay nin buu ku abuuray qaraar baad gaadhay inaad dawooyin isku mudid inaad waxyaabo isku beertid inuu aaladii ilaahay ku siiyey aad zuulisidaad ka goysid inaad meel kale waxyaabuu ilaahay subxaanahu wa tacaala kugu talin baad dhex gashay bal u kaadi ilaahay wuxuu ii hawl yareeyey inaan sacuudiga tago marka waxaan la kulmay cabdalla alxuqayl wadaad la yidhaahdo ani waa sheekha ii geeyey muftigii buu ii geeyey muftigii baan ku uri yaa fadiilati sheekh
xaalad sidaa iyo sidaa iyo sidaasaa jirta. fama alxukm. wadaadkii intan ka filayey inuu fatwo isiiyo wuu dawakhay, markaasuu maroora dilaacay. qaala ayucsi illaah bihadihi ariiq wamasaasa ilaahay dembi looga galaa. ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun laa xawla walaa quwata ila billah. markaasuu marra iga sii jeesta, markaasuu u ignoor gareeyey wadaadka. halkaasaan ag fadhiyaa sheekha, waxaan ku leeyahaa sheekh, qofka wuu isugayaa, kanadaan ku noqonayaa, iftina fi lmas'ala. sheekhu markaa wuu iga aamusay, wax allaalayo wuxuu igu idhaahdo markan la hadlaba wuxuu idhahdaa laa xawla walaa quwata ila billah. yaa sheekh, gabadhii mayayn mise gaalbeen ku daynaa? laa xawla walaa quwata ila billah. markaasaan ku uri yaa sheekh, azilak min ashicri beyt, aan kuusii kordhiyo waana guurdana maxaynu samaynaa? markaasuu yidhi ina lilahi wa ina ilayhi raajicuun. mid daba fadhiyaa yidhi yaa sheekh, qul lahu yaktub fanajcaluha aw nadacha amaama allajna. fatwada ha soo qoro, wadaadku ha soo qoro, waxaynu u gudbinaynaa. way inaga weynaatay macsiyadaasi. fadhigii marka wixii meesha joogay oo dhan xanshashaq, war miya dhac, ma ilaahay baa sababo dembi looga galay, ma macsiyadda? waxaan dareemay markaa majliska ina dembiga ilaahay laga galay ee kanada lagaga galay ee qof gaali uu ka galay inuu taabtay wadaadka halkaa jooga. waxaana ii caddaysay markaa wadaadkan i hor fadhiya inuu dareen iimaan wadnihiisa uu ku jiro, inuu wadnihiisu marka aanu aradin oo aanu asaguna angegnayna, inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaankii ku daayey oo iimaankii ku abuuray. xukumkii gabadha maxay ka gaadhay culammadu? horta culammadii way isku way sheekh ali shaykh iyo cabdalla almutlaq oo joogay markaa, iyo alxuqayn iyo khidayaan, intuba way joogeen. wixii dhintana raximahum allah, inta kalena xafidahum allah. way wax fatwada way isiin kari waayeen. waxaan u tegey markaa sheekh la yidhaahdo cabdilcaziiz alfawzan. cabdilcaziiz alfawzan waxay isu yihiin sheekh saalix alfawzan, waana sheekh nala joogay maraykanka 5 sannadood oo axwaal algarb iyo mashaakilka qarbi ka jira in 5 sannadood la dhex noolaa. masaladii markaa wuxuu yidhi waxaa waajiba inay gabadhani sidii uu ilaahay u abuuray isku celiso, oo markaa waxaan ay isgelisay iska saarto, in isku muddo harmoonaadkii loogu talagalay lidhukuur aw dhukuriya. markaa male hormones bay dhahdaan. markaa raganimadii waa inay soo celisaa. markaa irbaday isku mudaano, irbadahani garh timihii buu ka jaraya, codkii buu ka dhigayaa cod naacima oo soft ah. waxay isku mudaan hormoonaad untawiya. marka waa inuu hormoonaad dakariya isku mudaa oo asligiisii ku noqda. waxay qaadanaysaa muddo dheer oo sannada ah iyo lacag fara badan. marka loo doono marka aalati dakra loo doona ilaa aalati untawamka ayuu xambaarsan yahay. gabadh buu iska dhigay, marka waa nimada lagu soo celiyaa mar labaad. waxaan mudday qaadanaysaa fadiilati sheekh, muddada maxaa la sameeyey? kayfa yutacaamal maca hada alinsaan? sidee baan ula macaamilnaa? marka wuxuu yidhi fi lwaqti alxaadir, waqtiga xaadirka ah, waxay asligu isaynu xukunka sharciga u ognahay qofka bini aadamka waa 3: waa dakar, waa untha iyo khuntha. 3daa weeye. ama dee waa nin, ama waa gabadh, ama waa labeeb. marka wuxuu yidhi labeebkii ma gelin karo oo ilaahay saa umuu abuurin, ayadaa iska dhigtay oo asagaa iska dhigay. laakiin bixukma daahirkii, haddii qofku doonaya inuu masaajid yimaado, walaa budda inuu masaajid yimaado, waa inuu qisma dumarka lagu biiriyaa. marka qism dumarka waa ina lagu biiriyaa. hadhow marka codku uu soo noqdo oo arko marka inuu
وسوق ليو قسمي أما النوعية الرجولية أما نوعية الرجل وسوق ليو مركا وينس مركا حق الدمركا لوسو وليتي وحن مغلي وحن مالينا يا حق الرجع عفوا وحن مالينا يا إن يكون عليه مسألة ساسو كلاء إن النمسا أما السوير سبلان يموت السوير ما بكل عليه إمامكم مركا وحكر لجي إمام كاسي حكم الخنثى لكن الشيخ الفوزان وحول حكم الخنثى يو أيضا إني ولاد كان إلى هذا سلمان عودة حكم إن اللوع ديو أصل جيسي قف والله أعلى وأعلم